muuqaalkana waxaan kaga hadli doonaa sida loo sameeyo pages iyo posts sida loogu daro blogger website. Hadda waxaan ka bilaabanaa sida loo sameeyo pages. Okay, la soco kusoo noqon qaybta hore layout-ka. hadduu layout-ku san ku yahay xaggiisa ugu sarreysa marka joogto xagga bidixda xogaa u jiid, halkan ay kaaga soo baxaysaa main menu. Okay, qalinkeeda ku dhufo. marka ku dhufato kor u soo bax home-ta iska daa featureska iyo waxa iyagu ay ku soo dardarsan dhammaantood ka saarana saynu kuwaynu leenahay ugu soo darsano xagga hoose u jiid. waxaan dhammaantood iska saarana delete ku la dhac lambarka meesha delete ku qoranta xagga hoose la dhac, waxaa soo dhaw ka baxayaan waxa iska wada saar kuwa aynu leenahay soo gashanana kana ka saar home-ta iska daa. kolka waxa ku soo dhufanaysaa add new item baad ku dhufanaysaa. Okay, waxaan qorayaa wararka maanta page ayaan sameynayaa. waa page-kii kuwaas la soco oo page loo sameeyo. wararka maanta ayaan ku qorayaa mid ka mid ah. Save baan odhanayaa. markaan save idhaahdo haddana waxaan sii taabanaya marka la add new markaan idhaahdo waxaan dooranaya waxay ku qorantay set name. kadib waxaan ku qorayaa ciyaaraha ayaan ku qorayaa tusaale oo page-ka xagga sare ka soo muuqan doona kana save baan odhanayaa. haddana marka la add new ku dhufanayaa waxaan odhanayaa wargeys oo kale ama waxaan odhanayaa tusaale page kale ayaan ku darayaa. waxaan odhanayaa tusaale madadaalo oo kale save baan isagana odhanayaa. hadda waxaan sameeyey 3 page baan sameeyey oo wararka maanta iyo ciyaaraha iyo madadaalo kan home-na inoo soo sameeyay. kadib hadda save ayaan ku wada dhufanayaa kulligood. marka save saa ugu dhufto waxaan iska imanayaa qaybtan ii furnayd. hadday saa ii furnayna saddexda iliga sare ayaan tagayaa. kadibna waxaan kusoo dhufanayaa meesha ugu hooseysa ku qoran tahay blog post. Okay, hadda xaggan aan tagayaa meeshan ay ku qorqornaayeen waxani hadda marka hoos soo jiidno wayna isbedelaan waxaas meesha ka baxaan oo soo gashanay soo galaan. Okay, bismillah kor hoos ma soo jiidanaa. kadib ku dhufo saddexda iliga midigta sare. hadda waxay noo soo galay wararka maanta ciyaaraha iyo madadaalo. hadda mid ka mid ah ku dul dhufto waxay odhanayaa about blank waxba kuma jiraan waayo xamiina soo gelin weli meelna kumaynaan label gareyn ama category umaynaan sameynin. Okay, haddii dib ugu soo noqono kan dib ugu noqono saddexdan waxa kuma jiraan saddexdaaba wayna soo gelinayna. hadda waxaan u boodanaa sida loo geliyo hadaba post ama posts loo soo geliyo ama article waxa la yiraahdo. xaggaaga hore imo marka timaadid xaggan waxa timaada meeshan ku qoran tahay post ku dhufo. marka post ku dhufato meeshan ay plus ku qoran tahay ku soo dhufo. kadib postiga waxaad u bixinaysaa title ama magac title xagga sare ka soo muuqan doona postiga ee marka hore raacinayso oo aad ku qoraysaa xagga sare hadan ku qoro wararka ka soo baxaya Kenya doorashada Kenya ayaan odhananaa. adiga waxa aad xilliga kaga hadlaysaa ama postiga doonaysid inaad soo posti karayso ama war ha ahaado ama wax kale ha ahaado headkaas aad u sameynaysaa. xaggan hoose bannaan baad ku dhufanaysaa meeshan area-dan bannaan baad iska imanaysaa area-dan bannaan baad ku dul dhufanaysaa. kadib warkii baad qoraysaa tusaale waxaad qoraysaa hadda waan ku qoray doorashada Kenya article aan kaga hadlayo ayaan qoray oo intana marka inta qortid uu kugu dooran yahay qalinka yar waad jiidaysaa si aad sawir u soo geliso xagga u sarreysa ayaad geynaysaa marka w horteedaas aad dhigaysaa ama saas aad hor taabanaysaa. kadib qaybtan sare halkan ayaad qaba cafwan dan dib u celi halkan wax kuwan ku qorqoran yihiin ayaad dushooda qabanaysaa kadibna xagga bidixdaada ayaad u jiidaysaa. markaad u jiido waad wadaysaa meeshan yar ee ay ku qoran tahay sawirku ayaa sawir ka soo gelinaysaa xaggan fiidiyowga laga soo geliya kan sawirka ayaan taabanana upload from computer ayaan odhanana. kadib sawiradiiba kadib markaas ku soo baxdo waxaad doorataa choose file dooro kadib files dooro kadib sawirkii aad u baahnayd soo qaado
ugu talagashay inaad soo post gareyso sawirada saa loo isticmaalo iyagoo bilaa copyright-ana video kale ayaan ka samayn doonaa insha Allah. Hadda sawirkaas iska soo dooranayaa, kadib sawirku ii soo gelayaa, kadib selectida buluuga ku dhufanayaa, kadib sawirku ii soo galay waan arkayaa. Hadda sawirku waan weyneyn karaa, dhinaca waan durkin karaa. sawirka dushiisa saa ugu dhufanaysaa, waxaad ku dhufanaysaa meelahan ayaad ku dhufanaysaa, kadibna tan marka ku dhufato large baad ka dhigaysaa, weynaysanaysaa, waanad yareysan kartaa, dhinaca doonta ayaad geyn kartaa. Editku macna ma sameynayo, dushiisa maad ku dhufanaysaa, kolba dhinaca doonta ayaad geynaysaa, bidixda midigta. Okay, postiga marka soo qortid article xagga hoosena aad ku qortid, waxaad sameynaysaa intaanad post garayn, waxa wanaagsan inaad sameyso waxa la yiraahdo labels ama category. waxaad ku soo dhufanaysaa meeshan yar calaamada setting oo kale ay ku taalo, calaamada yar ku soo dhufatay sana kugu soo baxaya meeshan ay ku qoran tahay labels, halkan ay labels ku qoran tahay. haddii saa u foorarto falaadha yar ku soo dhufo, falaadha yar ku dhufo, kor markuu u jeesto halkan bannaan imo, kadib waxaad ku qortaa category calaashaan page-keeni inoo doorna ee xaggan inoogu jiray kuwan ayaa mid ahaan soo hoos gelinaysaa oo ka soo hoos muuqanaya mar dhow. wararka maanta kale tusaale ku soo level garaynaya oo hadhow ka soo muuqdaan oo leeyahay qaybta wararka. kadib halkan waxaan ku qorayaa wararka waxaan ku qorayaa tusaale wararka maanta ayaan ku qorayaa. Okay, marka saa ugu qoro intaas ugu filan, waa ku sii darsan karaa wax kale, laakiin hadda intaas ayaa badan. wararkan ku soo qorayaa, kadib waxaan sameynayaa, waxaan odhanayaa falaadhan ayaa ku dhufanaya ama bullish meesha kugu qoran tahay, kadibna waxaan ku dhufanayaa confirm. marka confirm ku dhufto waxaa ii soo gelaya postigayga, hadda wuu soo galay oo in website-kayga ka muuqda. hadda halkan ayaan imanaya website-kayga caadiga dashboard-kiisa, kadib hal mar baan hoos u soo jiidayaa website-ka shaashadiisa ama weriya dushiisa ku dhufo. hadda wayna postigeena aragnaa oo hadda postigeena ayaa noo soo galay, uu ka muuqda page-keeni ama uu ka muuqda blogger website-keeni waa laga arkayaa. oo marka cidi soo booqato waa in si toos u aragtaa. haddaan ku dhufto sawirkan waa inuu geeyaa wixii aan ka hadlayay, wixii doorasho ku saabsanaa waa kana xaggan iyo qoraalkuna kusoo qormaya. waxyaalahan xagga hoose ka soo muuqda iyagana waa wixii aan kuu sheegay markii waan edit garaynanaa. social media-han waa iska saaranaa, waxaan u baahanaa qayb koon doonno edit garaynanaa. labelskana wararka ayaan sameynay. markaas si videogeena aan u soo koobno intaas ayaan ku joojinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.